بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا waxaan galaynaa xalqadii afraad oo ah xalqada ugu dambaysa ee mowduucii aynu ka soo hadlaynay oo ahaa tawxiidka xaqiiqadii maqnayd. Marka waxaan jecelahay mowduucaas inaan ku bilaabano dhowr aayadood. Aayadda ugu horeysa qul inna salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin yaa saaxibaya السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ayadda ugu horeysa Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay waxaad tiraahdaa salaadayda iyo cibaadadayda iyo noloshayda dhimashadayda intaba waxay u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala oo ah caalamka rabbigiisa. ayadda kalena waxaa Allah subxaanahu wa tacaala uu noogu soo gudbinayaa nebi yuusuf oo la hadlaya saaxiibadiisii yaa saaxiibay السجن يعني saaxiibadayda sijnigow أأرباب متفرقون خير ma rabbiyaalo kala duwan ayaa khayr badan mise allah oo ah alwaaxid alqahaar allaha keliga ah ee wax walba qasba. run ahaantii marka aad ayaddaa si degan ugu fiirsato waxaa kuu soo baxaya xaqiiqada tawxiidka ee maantay aadamaha ka dahsoonaatay taa oo ah in nolosha aadamaha ay leedahay yani xaqiiqada waxaa weeye in aadamuhu uu leeyahay hal ilaah iyo hal rabbi oo ay tahay in kelidii addoon ay u noqoto isla markaana ayan jirin qayb nolosha ka mid ah oo uusan maamulaynin ama aan loogu hoggaansamaynin Allah subxaanahu wa tacaala. laakiin taa beddelkeeda waxaad arkaysaa maantay in bini aadamkii uu ku jiro burbur iyo jahawareer dhinac walba ka asiibay. sababtaasuna waxaa weeye in noloshii aadamaha ay ku takrifalayaan dawaaqiid aada u fara badan siday doontana ay ka yeelayso yani dawaaqiiddaasu. marka يعني run ahaantii arinta marka aynu doonayno inaan aad xoogga u saarno waxaa weeye waa tawxiidka oo xaqiiqadiisu ay tahay xoreyn iyo karaameyn loogu yaboohayo aadamaha oo dhan. bal walaal si degan ugu fiirso saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ridwaanullaahi calayhim yani awraahda ama kelimadda ay maaragtay taariikhda gashay oo ah maaragtay saldhigga ay ka duulayeen markay bini aadamka ugu yeerayeen ama ay u bandhigayeen nolosha islaamka. yani saxaabadii waxay ugu jawaabeen nin markii boqorkii rustam uu wareystay allahu btacaثnaa linukhrija man shaaa min cibaadati اlcibaad ila cibaadati rabi اlcibaad wamin dayqi اdunya ila sicati اdunya wاlaakhira wamin jawri اladyaan ila cadli اlislaam. taa uu macnaheedu yahay alle ayaa inoo soo saaray inaan ka saarno ciddii uu doono addoonsiga addoommada una saarno inay addoommo u noqdaan iyo caabudaanna rabbiga addoommada iyo inaan ka saarno ciriiriga adduunyada una saarno sicada adduunka iyo aakhirada kana saarno jawrka iyo dulmiga ay ku sameynayaan adyaanta una saarno cadaaladda islaamka. marka ficlan maanta marka bini aadamka arrinta ay aadka ugu baahan yihiin oo aadka maaragtay yani insaanka oo dhan uu dareemaya maantay macnaa inuu baahi weyn u qabo waxaa weeye inay ka xoroobaan dhammaan noocyada kala duwan ee ah addoonsiga addoommada inay ka baxaan. taa oo ah runtii mid aada u noocyo badan oo aynu horey uga soo hadalnay cashirkii hore aynu ku soo gudbinay. dhinaca kale marka xaqiiqada islaamka laga hadlayo waa tawxiidka. tawxiidkana waxaa weeye in alle keliya uu noqdo kan hogaaminaya nolosha aadamaha oo dhan oo dadkuna ay addoon ugu noqdaan alle keliya. waana taas macnaha ah xaqiiqada maanta maqan oo dadku ayan aada u fahamsanayn. marka bal aynu si degan u fiirino ama aan maaragtay u aragno aayaadkan Allah subxaanahu wa tacaala uu noogu soo gudbinayo. qaala hbiطaa minha jamiica bacdukum libacdin caduwun faima yaأtiyannakum minii hudaa faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa. alle wuxuu leeyahay dega oo ardadii xaggeedii u dega idinkoo qaarkiin qaarka kale ay cadow u yihiin haddiise uu idin yimaado xaggayga hanuun faman itabaca hudaaya ruuxa raaca hanuunkayga falaa yadilu walaa yashqaa. marka hanuunkaas ilaahay uu aadamaha ugu talagalay ciddii raacda wuxuu ilaahay u ballanqaaday inayan lumin iyo inayan dhul darsanin. marka yani dhammaan rusushii ilaahay uu soo diray oo uu ugu dambeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay u wadeen insaanka caddaymo buuxa ayay u wadeen iyo dariiq maaragtay toosan iyo hanuun toosan ayay u wadeen maaragtay. waxaa kaloo alle uu leeyahay isla macnahaas
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. marka ayadaas ilaahay wuxuu noogu sheegayaa in insaanka ilaahay uu siiyey bayinaad dhinaca amarka yacna marka waxyaabaha runtii aad u cad nolosha dhinac kastoy tahay dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada jaanib kasta oo nolosha bini aadamka ka mid ah ilaahay bayinaad ayuu u keenay oo rusushii ilaahay ugu soo dhiibay marka insaankii isma aysan khilaafin baa layidhi ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu yani cilmiga markuu u yimid kadib bay aadamuhu iskhilaafeen ayagoo markaas taasina ay ku bixinayso baqi iyo qooq ay maaragtay isku qooqayaan sidaasoo kale ayad maaragtay ayadana ka hadlaysa ducadii iyo shacaa'irtii in ilaahay loo keli yeelo waxaa weeye ayadan wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axadan masaajidda allay u sugnaatay marka ha baryin alle maciisa ama alle la jirkiisa ha baryin axadan axadna ha baryin marka taas oo macnaheedu yahay in qofka uusan cidan alle ahayn uusan baahidiisa iyo maaragtay dhibaatada haysata yuusan u bandhiganin marka alle keliya ku xirno weeye maaragtay waxaa kaloo alle aayad kale noogu sheegaya suurat zumar aayad ku jirta alaa lilaahi addiinu alkhaalis waladiina ittakhaduu min duunihi awliyaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa marka diinka khaaliska ah ayaa alle u sugnaaday maaragtay diinka khaaliska ee saafiga ah oo tawxiidka waafaqsan baa ilaahay u aqbalaya subxaana wa tacaala laakiin cidda samaysatay alla sokadiisa awliyaa waxay leeyihiin maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfa uma caabudayno ilaa inay noo dhoweeyaan alle maaragtay dhowaan baan u caabudaynaa marka taasna waxay muujinaysaa shacaa'irta sida ducada sida tala saaradka sida maaragtay shafaaca weydiisadka waxaasoo dhan waxa aadamuhu ay maaragtay u bandhigayaan inay tahay shirki aan tawxiidkii iyo maaragtay xaqaa'iqda islaamka waafaqsanayn waxaa kaloo Allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum rabbigaadaan ku dhaartay ma rumaynayaan ilaa ay kaaga soo xukuntamaan marka tawxiidka khaaliska ah waxaa weeye in ilaahay keliya xukunka loo doonto in ilaahay keliya maaragtay la weydiisto xalkii iyo maaragtay xalintii mushkiladaha iyo dhibaatooyinka insaanku isku khilaafsan yahay marjaceedu waa allah subxaanahu wa tacaala waxaa alle uu inoo sheegayaa aayad kale walaa yushriku fii xukmihi axadan macnaa ilaahay xukunkiisa lama uu wadaajinayo axad kale marka yani arrimahaasoo dhan yani waxaa weeye oo ayado muujinaya in alle keliya nolosha loo hogaamiyo oo xaqiiqada nolosha oo dhan ilaahay maaragtay lagu hogaansamo hadday ahaan lahayd maaragtay nidaam hadday ahaan lahayd caqiida la rumaynayo iyo hadday ahaan lahayd shacaa'ir iyo cibaadaad la sameynayo marka ficlan marka haddaynu soo koobno casharka waxaa weeye taladiisu ama gunaanadkiisa walaal alle keliya ugu adoon noqo dhammaan waxa aad rumaynayso oo isagoo uun ka qaado ictiqaadaadkaada iyo aragtiyaha xaqiiqadooda oo dhan marka bini aadamka wax alle waxa uu rumaynayo wax alle waxa uu ictiqaadinayo iyo xaqaa'iqda kownkan oo dhan uu ka rumaynayo ama wax muuqda iyo wax qarsoonba waxa uu rumaynayo alle keliya inuu ka qaato maxaa yeelay ilaahay unbaa og xaqiiqada yacnaa marka taasi waxa weeye waa qadiyadda ugu horeysa ee ah maaragtay in qofku ilaahay keliya uu xaqaa'iqda ka qaato walaal alle keliya ula jahayso cibaadaadka oo dhan sida baryada magangalka kaalmaysiga tala saarashada nadarka gowraca sujuudda iyo wixii la mid ah shacaa'irta waxaa la yidhaahdo oo dhan in qofku uu maaragtay iyo ta'alluha iyo maaragtay cibaadaysiga oo dhan in ilaahay uu la aado subxaana wa tacaala cid kale uusan la wadaajinin tawxiidka xaqiiqadiisu waxaa weeye walaal alle keliya ka qaado xukunka sharciga iyo dhammaan xeerarka lagu maamulayo noloshaada qofeed midda bulshadeed iyo habka dowladnimo marka haddii marka aan soo koobo xalqadan afraad macnaheedu waxaa weeye xaqiiqada qarsoon waxaa weeye aadamaha maaragtay yanaa aada maaragtay lagala dagaalamay waxaa weeye inuu ilaahay keliya addoon u noqdo inuu alle keliya noloshiisa oo dhan maaragtay uu u hibeeyo alla subxaana wa tacaala hadduu maaragtay ahaan lahayd dhinaca sharciga nidaamka yanaa siyaasadda xayaatada oo dhan in ilaahay uu maaragtay kala kulmo subxaana wa tacaala ayaa maaragtay xaqiiqada tawxiidku ay tahay marka yanaa runtii hadafkayagu waxaa weeye ujeedadeenu waxaa weeye sida aan horey usoo sheegay in ummadeenna ay badbaado
الدنيا آخره إن أي ماركتي إلهي سبحانه وتعالى كحرمان وأي هلان رضيه سا يبدبادي سا وهي هدف كنا وبالله التوفيق والله أعلم بالصواب.